سيدة قلاب بارلمانك دولة الفدرالك سنة ترى السنة دوبك قيمي بدن بارلمانك دولة كيرشبيل يقولها وزيرة دولة قبل كيرشبيل سراكيش عندما قلب وسيدة قيمه ذاك الدول مرتشرف قيمي بدن ودهان انت كسوغان هالكان وحكو السلام يا سلامة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام هذا يا أبو فرح سنة هاي مالتا نسيت نوصل جبجبوده لما تقولي أبو رسالك الصعدي مدة لبضة بلاد الله يعلم هذا علينا ونبى تقولي نوم دمي الأول الله أيام هذا علينا سبحانه وتعالى وبرسالك مدة الصعدي nabadgelyo loogu soo dhameeyay idoon hal maalin wax khilaafa iyo wax shaqaaqa ayna ka dhicin hal maalin haba yaraatee wax dhibaato ayna ka dhicin allah ayaan u mahad celinaynaa marka labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle ee codkooda isiiyay iyo ogolaaday 4 sano soo socoto inaan yeesho go'aanka ugu dambeeya dowlad goboleedka Hirshabeelle waa ugu mahad celinaa waa mahadsantiin xildhibaanadayda Allah marka saddexaad waxaan u mahad celinayaa duubabka dhaqanka duubabka iyo odayaasha dhaqanka qiimiga badan ee ugu soo safray daruufii kala duwanay ee aan ogahay inay xaalado badan oo culays ah la soo kulmeen iyagoo ku safray ujeedkooduna oo ahay in ummadooda ay duubabka u yihiin ay helaan maamulay ku hirtaan oo ku nastaan inay helaan safarka ay safreen Ilaahay ka abaal mariyo anagana waa ugu mahad celinaynaa waana hubnaa inay xaalado adag oo badan ku soo safreen waxaan leenahay Ilaahay idinka abaal mariyo duubabka dhaqanka ee soo xulay baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddiyadii kala duwanay ee howlaha iyaguna soo qabtay sida guddigii farsamada ee muddada dheer shaqaynayay bilow u ahay processkan bilaabay waxaan leeyahay guddigaas waa dadaasheen waa dhammaantiin ummadiinana shaqo mug leh oo muuqata ayaad u qabateen mana la ilaabi doono Ilaahay idinka abaal mariyo ayaan leeyahay waxaan rabaa inaan asigana u mahad celiyo guddigii doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee iyaguna soo daadiyay ilaa guddoon baarlamaan ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo yeeshay iyaguna hawsha waday waa mahadsantiin ayaan leeyahay waxaan asigana u mahad celinayaa guddiga ugu dambeeyay ee ka shaqeeyay doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo maanta aan u joogno waan leeyahay guddigaas idinkuna waa mahadsantiin guuleysta allahna idinka abaal mariyo ayaan leeyahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee habeen iyo maalin u taagnaay say amniga u sugi lahaayeen hawshuna ay ugu dhammaanayeen si amni iyo deganaana xaqiiqda waxaan leeyahay waa mahadsantiin anigoo ugu roob ku da'ayay ilmaayada ay taagnaayeen habeen iyo maalin waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ummadiinana abaal ayay idinkaga haysaa annaguna si gaar ayaan idin ogaan doonaa hal maalin haba yaraatee wax middaraa lama dareemin allah ayaan uga mahad celinaynaa gaar ahaan ciidamadii qalabka sida qayboodii kala duwanay ee habeen iyo maalin dhaxanta iyo dhadiga u taagnaaya roobka ku da'aya waxaan leeyahay waa mahadsantiin allah idin guuleeyo horena u sii wada sidaa hadda u wadiin aadaad ugu mahadsantiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee qayb waliba meeshii uga aadaneed ay ka qabatay hadday martigelin tahay hadday talo la soo jeedihaya tahay iyo hadday toosin tahay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle waa uga mahad celinaya xaqiiqdii processka qaybta ay ka qaateen oo qayb mug leh xaqiiqda waxaan leeyahay waa bulsho bisil waa bulshay ka go'an tahay inay horumar gaaraan khayrkoodna ay wax la qaybsadaan waxaan leeyahay bulshada ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda dhexe
بروسيسكان انتو صعدي سيدة أولا صعدتي تلوين وناكسن أو وحكو أولا كيستي وعلىها ملحظة قرن كوان ما سنتين واجب إنسان رأيات قدتين وانين كما العلينينا سيدة أولا صعدتين يتلوين وناكسن كيستين إن أمتا كنا دولة قبلات كيرشة بلا يهشو معامل يدو الله دهي وكما العلينينا وحانا قرينا حبيراته وفر قلنا دولة دحينين كويالا لسيدة معاملك دولة قبلات كيرشة بلا waxaa tashtay oo maamulka dhistay si madax bannaan ummadda ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ay ugu horeeyaan duubabkii soo xulay baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan leeyahay oo ku maasantii dowladda dhexe talada aad ka geysateen iyo ka warqabka aad ka warqabteen si hawshu u socoto waxaan rabaa inaan u mahad celiyo beesha caalamka guud ahaan howla ay ka hayaan Soomaaliya gaar ahaanna dowlad goboleedka Hirshabeelle waan uga mahad celinaa iyagana idinku aad u mahadsan waxaan rabaa codsi waxa iga ah guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaanna ummadda ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle dal iyo dibad meeshay ka soo jeedaan ummadda ku abtirsato dowlad goboleedka Hirshabeelle inay gacan iga siiyaan مسؤوليتان culeyskeeda leh ee la ii dhiibay waxaan rabaa in gacan la iga siiyo haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaan dhegaysan doonaa talooyinkooda anigoo qaadan doono tala kasta ee wax ku ooda ee dalka iyo dadka anfacayso waa qaadan doonaa ee ma naga doono in ushiisa meel uga jaran tahay ee talada loo soo jeediya aan dhacdo ma naga doono waa xaqiiqo ومسؤولية علاس كذا له قفوا لي بالعقل له وعلم لنا وادرين كفت علاس كذا مسؤولية دار ولاده هاي وحن إلهي كبريا يا إنه مسؤولية دار الوعى بين أو أسطره ونوجه هاي إن أخيرا حساب أي بسوق أيوه أدون كان أمضى أيوه في سنة أيسو أي مركاتي كتاعي قاب كان وحوق بها أيوه أو حال لي هاي إلهي هو أسطر منك أدو كرجرتاك كرجر هسته إله أدو كرب وسي أمضى إذا وحن كبريا إنه يوحي تلاه يوحي توسينا إلى كرب استاكتو وعنو باهنا هاي عد كسته عقل وصاحبه عد كسته علم وصاحبه عد كسته واي أرجع فلا ذا وعنو دقيسة دونا سكر سوري وجبته وعنا يبو بلنا إن الأم بلانو ترويج وعقول كثيرة ذلك آدي عدد ما سنتين آدي عدد ما سنتين وعم بلغ هذا يا ومدة كله دولة دولة Hirshabeelle inaan ku hogaamiyo si cadaalada si sinaana si uturida oo xaqeeqdii aan loogu kala yaxanaynin cid waliba xaq ay leedahay aan sii doona haddii ilaahay raalli ka noqdo aad u mahadsantihiin ilaahay ha nagu gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa iyo sanado badan ee soo socdo bashbash iyo barwaaqo balantaynu waa inaan ka wada shaqayno danaha ummadda ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle